warqadda waxay macnaynaysaa ra-iisul wasaaraha inuu diyaar u yahay waajibaadkiisa dastuuriga inuu guto oo uu xilka wareejiyo maadaama ay sharci tahay ra-iisul wasaaraha codka kalsoonida markii lagala laabto ama isaga istiqaalo uu geeya laga aqbalaba inuu xil wareejin sameeyo taas ayay ka dhigantahay inuu diyaar u yahay. marka dhanka sharciga markaaynu ka eegno ra-iisul wasaare maruu xilka tago ku cusubna uu yimaado xilka yaa ku wareejiya sharciyan sida dastuurka Soomaaliya marka uu dhigayo? ra-iisul wasaarihi midkiisa wareejinaya xilka yaa kala wareejin lahaa. ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre markii uu codka kalsoonida uu kala laabtay baarlamaanka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo wuxuu si kumeel gaar ah u magacaabay Mahdi inuu xilka ra-iisul wasaarnimada uu sii hayo. marka haddii xilka uu wareejiyo oo ra-iisul wasaarahan cusub uu ku wareejiyo maxaa dhacaya? ra-iisul wasaarihii codka kalsoonida baarlamaanka siiyey ay baarlamaanka ku ogaayeen sharciyan inuu hogaamiyo dowladda uu hogaamiyo federaalka isagaa laga rabaa xil wareejinta inuu sameeyo marka isagaa marka horena loo dhaariyey inuu dowladda hogaamiyo xilka codka kalsoonida lagu siiyo hadda markii laga laabta xil wareejinta isagaa laga rabaa sharciga siduu tilmaamaya waa saas waana caddaha xisiga xataa saasay kutusaysaa marka ninkan waa kusimaa la yidhi mahane ma aha nin kalsooni baarlamaan helay ama loo dhaariyaba ma ahaba ilaa xataa haddii loo magacaabi lahaa waa loo dhaari lahaa baarlamaankaa la horgeyn lahaa. waan gartay marka ra-iisul wasaarihii hore meesha uu ka baxay balse golihiis wasiirada uu dhisay oo isaga markaa la shaqaynaya si kumeel gaara weli usii shaqaynaya marka go'aanada iyaga ka soo baxa maadaama ra-iisul wasaarihii meesha una joogin sharci ma noqonayaan dhinaca sharciga markaad ka eegto? maya dastuurka Soomaaliya oo dasaasiirta dhanba oo waxay wada qabaan caretaker governmentiga waxaa jiro ilaa iyo xad howlaha oo ay qaban karaan iyo ilaa iyo xad howlaha ayna qaban karin howlaha ay qaban karaan waa xilsiixayn xilka ayna dhicin firaaqa ayna dhicin ayay sii dhamaystirayaan shaqadii day to day mashruuc sharciyeed cusubna ma qori karaan oo ma gudbi karaan commissionna ma magacaabi karaan darajooyin sarsare iyo xelal sarsare sida safaarada iyo ma magacaabi karaan budget ma soo gudbi karaan xisaab xer ma samayn karaan shaqadii oo wasaaradda day to inayna joogsanin ayay keliya isii wadi karaan wax howlaha kale oo loo ogol yahay kalsoonidiiaba lagala laabtay wax kalsoonida lagala laabtay ma aha ra-iisul wasaaraha waa xukuumadda dhan. waayahay ugu dambayn ra-isul wasaaraha cusub ee haatan ee Soomaaliya golaha shacabka ee dalkaasi Soomaaliya cod kalsooni ayuu siiyey oo hadda waa ra-iisul wasaare magacaaban balse maxaa marka u yaala howlaha u yaala laga sugayay maxay yihiin? waxaad moodaa hadda inay kooban tahay howlaha laga sugayo waayo baarlamaanka maanta wuxuu ansixiyey doorashadii iyo waktigeedii iyo hanaankeedii dalka doorashuu galaa keliya howsha hadda hortaalla waxa ay tahay si degan inuu howlaha doorashada ay golaha wasiirada ku dhammaystiraan dalkana laga ilaaliyo gola wasiir la-aan inuuna noqon marka wax xilahoo weyne u yaalo oo muuqda maba jiraba marka baarlamaanka waxaa la filaaba inuu mar dhow u dareero ololaha doorashadoodii inay aadaan marka maxaa la fili karaaba wax la fili karaa yar haddii uu madaxweyne inta ama kan jooga soo noqdo ama mid kale la doortaba markaas kalsooni kale inta la siiya la yidhaahda sii wad saa inay dhacda mooyaane barnaamijka uu diyaarinaya xataa ma noqon karta 6 bilood barnaamij mana la diyaariyo qorshooyin 6 bilood sanadaa la diyaariyaa marka maba gara karaba aniga waxaana dhamaystir ahayn oo waajibaha oo u yaala inay muuqdaan ani ma arko.